kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenna oo xiiso badan aan ku soo qaadan doonaa dagaalada ka socda shabeellada dhexe ayaa la sheegaya in ciidamada dowladda iyo huwantii garabsanaysay ciidamada dowladda inay gacanta ku dhigeen degmada aadan yabaal oo in dhowaalaba ay ku taamaysay dowladda federaalk ee soomaaliya inay gacanta ay ku dhigaan waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa taliyaha nisa mahad salaad oo la sheegaya in xogaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay helayso la sheegayo oo isa soo taraya inuu ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay ikraan tahliil oo dhowaan ku geeriyootay dalkaasi soomaaliya waxaana la sheegayaa in mahad salaad uu in dhowaalaba qarinayay xogta dilka gabadha lagu magacaabo ikraan tahliil waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doona magaalada muqdisho oo la sheegayo in lagu soo rogi doono bandow maadaama saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ay la shaqaynayaan kooxaha al-shabaab ee haatan lagula dagaalamayo gobolada shabeellada dhexe iyo gobolkaasi galgaduud daawadayaal barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaa waxaana rajaynaynaa inaad saaxiibadiin kusii shargaraysaan oo aad la wadaagtaan barnaamijkeena waxaa diyaar u ah oo aan ka wareysan doonaa saaxiibkay gooni faragodo waa mahadsan tahay haddaan ku hormarno dagaalada ka jira shabeellaha dhexe iyo deegaanada kale ku dhow guulo aad u fara badan ayaa laga gaaray waagii lasoo dhaafay masaajid cali guduud iyo maxaa la yirahday sooman iyo meelaha waatan ku meereysanaynay hadda ugu dambeyn aadan yabaal gacanta lagu dhigay maanta marka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya aadan yabaal ku hareeraysan yihiin nimanka shabaabna waa isaga baxeen oo diyaaradihii maraykanka markay arkeen oo ciidamada huwanta iyo macuusleyda ay kusii socdaan ay arkeen magaalada aadan yabaal oo isaga baxeen ciidamada dowladda hadda miina baaris ay ka wadaan aadan yabaal gacanta ayayna ku dhigeen saacadda hadda adin la hadlayna gacanta ku dhigeen marka xaalka al-shabaab waa sii dhamaanaya xagee u baxeen marka hadda mar haddii aadan yabaal ay ka baxeen waxay aadeen ceelbur qaarkoodba way gaareenba saraakiishu ceelbur mar hore gaala xalay baxeenba marka xaaladda hadda shabaab waa isku dhamaad mar haddii aadan yabaal laga qabsaday gobolka shabeellaha dhexe waa ka dhamaadeen hiiraan oo dhan way ka dhamaadeen marka waxaa lasla aadi doonaa galguduud dhulkaas iyo ceelbur ayaa lasla geli doonaa marka waxaan u malaynaa maalmaha soo socda shabaab dagaalka inuu kusii weynaan doono ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dhan walba waa iska diyaariyeen wixii madaxweyne xashin maxamed wuxuu dalbaday in 2 usbuuc gudaheeda in macnaha lagu qabto dhulkaas arrintina hadda waa la dhabeynaya waxaa kaloo ciidamada nimanka la yirahdo xildhibaan jacfar iyo nimanka hadda ciidamada aadan yabaal kusii dhow iyo ninka la yirahdo isheeg gudoomiyaha cali jeet waxay codsadeen ciidamo dheeraada in loo soo diro hadda dowladda ka codsadeen maadaama aadan yabaal aan gacanta ku dhignay waxaan u baahnay dhin ciidamo iyo dad gurmad dheeraado degdeg aan u baahnay dhin si nimankaan aan usii baxsano ilaa iyo ceelbur iyo meesha kale ay tagaan baan ka daba tag ilaa xara dheere marka dowladda federaalk soomaaliya dadaal aad u weyn ayaa usoo hoyday guul aad u fara badanana usoo hoyatay marka waxaa laleeyahay hadda al-shabaab waxaan u malaynaa in aadan yabaal hadday ka dhamaadeen mar dhow lasoo afjari doono waxaa la isweydiinayaa haddii mar ceelbuur looga daba tago gooniyo uu ceelbuur laga saaro deegaanka galguduud ama gobolkaasi galgaduud xaggii kaloo ay nimankaasu ay ku dhumaalaysan karaan maadaama oo dhanka jubbooyinkan ayna u gudbi karin soo inay si soo dhiibaan dowladda un maaha hadda al-shabaab mar haddii laga saaro dhulkan hadda aadan yabaal meelahan laga saaray ay ceelbur ay aadeen ceelbur 2 mid a u furan waa inay gacmaha intay saartaan ee qoryahana soo dhiibaan ay yidhahdaan annaga waa soo dhiibnay qaybta diidana waa inay xardheere dooni inta ka raacaan ee u wareegaan dhankaas jubbooyinka maadaama ciidamada dowladdu ay marinis aysan lahayn oo aysan qabanaynin waxay noqon doontaa inay xeebaha inta ka baxaan ee xeebaha meelaha cidlada ku degaan markii meelaha u dhadhow inta ku degaan ay aadaan dhankaas iyo maxaa la yidhaha jubbooyinka dhul jubbada dhexe dhul kayn ah ilaa iyo jilib ilaa meelaha u dhow waxaa ku yaal dhul kayn ah oo lamagalaan ah halkaas inay ku dhumaalaysa doonaan halkaas u wareegi doonaan loo malaynaa maadaama aysan ku dhuuman karin dhulkan hadda galguduud oo macnaha meel aad laysku arkay ay tahay weliba ceelbur kuma dagaalami karaan ceelbur wandhay laguma dagaalami karo ceelbur isku weer waaye inteeda banaan magaalada marka ka baxdidna geed waxaa kugu horeeya markii aad hal saac socoto geed kugu horeya inta kale waa banaan tahay marka meeshaas meel lagu dagaalami kara ma aha haddaa god qodato oo kasoo dhex dagaalantana godka lagugu dilaya waa meel macnaha banaan oo barxad ah marka ceelbur inay ku dagaalami karaan al-shabaab uma malaynayo taas waa isku soo dhamaatay laakiin hadda ceelbur ay isku shubeen ugu dambeyn meeshiisii aadi doonaan waa la ogaan doonaa maalmaha soo socdo wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin doonaa faragodow warka haddana soo gaaray oo muhiimka ah waa in aadan yabaal gacanta lagu dhigay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadeeda oo ay ka mid yihiin jacfar iyo ninka la yihahdo yaasiin farey iyo xaadoole iyo ninka la yihahdo cali jeete ay hadda magaalada ay isku wareysan rabaan gooniyo waad mahadsan tahay dhanka kale daawadayaal sida aada hordhici ku maqlayseen waxaa soo tarayaa kiiska ikraan tahliil oo la sheegayo in rag uu ku jiro mahad salaad ay lugaha la gashay haddaba arrin faahfaahintaasi ku saabsan waxaan mar labaad wax ka weydiinaynaa saaxiibkay gooni horta kiiska ikraan tahliil muddo fara badan oo soo jiitimayay isku dhiib fara badanna waa soo maray mar fahada loo dhiibay kiiskii fahad wuxuu usii dhiibay mahad salaad iyo gruubkiisa marka kiiska ikraan tahliil iska daba wareego noqday ugu dambeyntii hadda waxaa leeyahay kiiska ikraan tahliil
nin la shaqayn jiray ninka la yiraahdo yaasiin ninka la yiraahdo Faad Yaasiin ayaa xog bixiyay wuxuuna ka tirsanaan jiray hay-adda nisa xogtuna wuxuu la wadaagay mahad salaadna waxaa leeyahay sirtii gabadha iyo xogtaas buu qarinaya marka maadaama xogta asaga in lugta la soo gasho uu ka baqayo wuxuu la aamusay ninkan hadda sirta la wadaagay oo hadda xogta gabadha meesha laga qabtay sababta loo dilay oo waxa ay sababsatay kulli wixii dhan oo faahfaahin ah ayuu macnaha mahad salaad farta ka saaray marka dadku waxay isweydiinayaan mahad salaad nin sirta qarin karo ma aha sirta gabadhaas hadda banaanka ay imaan lahayd laakiin asaga ayay lugta la galaysaa marka sababta uu qarina waa taas marka waxaa laleeyahay Faad Yaasiin waxaa leeyahay xogta mar walba kusoo celcelin jiro dhihi jira mahad salaad kama dheera mahad karatayn usii dhiibay ninkan marka asaga xogta la wadaaga waa nin dhalinyaro oo nisa ka tirsanaay wuxuuna marka wuxuu yiri gabadhaas halkaas laga soo qabtay habeen waqtigaas 2 saac habeen waa la soo qabtay waana gaarigaas lagu soo qaaday meeshaas la geeyay meel heblaaya lagu dilay waxaa la sheegay markii dilkeedan wax u sababtay arrimahaas marka intaas xog la wadaagay marka arrinta markuu yiraahdo waa fiican tahay ii joogo dhaha ninkii marka hadda xarun nisa oo dhex jooga waa nin nisa hadda shaqo ka haya ma aha laakiin waa nin xubin nisa ka tirsan waa oo xubinnimadii uu ka hayay Faad Yaasiin markuu tagay ayaa laga qaaday laakiin waa nin ciidan hadda nisa ka tirsan marka ciidamadu ku tirsay waxa la wax xog ah ama bixin kartaa ma jirto meesha ku aamus marka maadaama ninkan xogtiisa la qarinayo qaaligu haado gabadha hooyadeedna ay kiiska mar walba ay ka daba ordaysay ay ka daashaba hadda in la ilaaway ay ku dhaweyd hadda waxaa leeyahay kiiska dib u soo laabtay marka haddii la yiri xog ayaa lala wadaagay ninka la yiraahdo sheeg mahad salaad ugu dambeyntii waxay noqonaysaa hadda xogta aad aqriso oo hadda meel ku ogaan lahayd aad dhihi lahayd qof hebel sameeyay mogtahay markaas cadeena waxaa dhihi lahayd mogtahay waa iska wareejin lahayd laakiin hadda asaga ay lugaha kula jirtaa kiiskii Igraan Tahliil asagana ku soo aruuraysaa maalmaha soo socdan waxaa laga yaabaa in kiisku inta uu ku sii weynaado in dabagal fara badan in lagu sameeyo gooniyo waxaa la isweydiinayaa arinta ah maadaama oo dowladdan haata ay qabsatay waa nimankii ugu faraha badnaa ee ku dhaliilayay madaxii hore ee sirdoonka inuu arintan ka dambeeyay marka maadaama dowladda qabsadeen maxaa ay siraha la soo fogilayeen dad badan baa isweydiinaya inuu Faad Yaasiin hayo xogo maqal iyo muuqaal iyo cadeymo fara badan oo ay ku dhici layihiin arrintaasi ma suuragal ba arrinta waa suuragal dowlad horta gabadhaas meeshay jirto nabad iyo nolol iyo dhami jidid iyo inta siyaasadda ku jirto ogta waxa la isla qarinayo war sababaa jirto marka qofka kamid ah oo macnaha dhibka geystay iyo sababta loo geystay waa arrin sir ah oo dowladnimada Soomaaliya wax u dhimaysa haddii banaanka la soo dhigo waana wax la isla ogyahay marka rooblihii qaylinay oo aamusay xasan sheekh qaylinay Igraan Tahliil cadaalad helay dhehe oo aamusay ninka la yiraahdo mahad salaadka asagana dhaqeylinayo kiiska Igraan Tahliil ku meel maray oo aamusay alcadaala asagana sidoo kale waa aamusay marka ragii ayagoo lagu eedeeyay xataa mahad salaad iyo lagu eedeeyay iyo ninka la yiraahdo alcadaala iyo rooble waxay dhihi waayeen war anaga gabadhaas waxba kama ogan waxna kama dambeyn oo dhihi waayeen marka kiiskan waa u jeedaa in la wada qarinayo marka ugu dambeyntii gabadha cadaalad way heli doontaa laakiin soo dhawaata ay soo dheeraataaba banaanka ayuu imaanaa kiiska Igraan Tahliil wali dhex meereysanaya dadka dowladii hore ee nabadii nolol ka tirsanay dadka dhami jidid ka tirsan labadooda kama dheero wax walba ay noqotana banaanka oo imaan doona wax walba oo la qariyo maray soo baxaan marka nin waxa la yiraahdaa hadda kor Soomaaliya oo Ingiriiska lagu dilay 73 ayaa si qalad loo dilay marka si qalad loo dilay dowladda Ingiriiska hadda ay ogaatay hadda 2022 ayaa la ogaaday qoyskiisa yaa la raadiyay oo lacag magdhow ah oo 2 milyan oo macnaha giniga sterling ah ayaa la siiyo magdhow ah waxa la yiraahdaa abiin qalad lagu dilay ma fahanteen marka waa soo cadaatay 73 ilaa hadda meeqa u dhaxayso almost 47 sano waay marka waxaan marka xog walba ay noqotaba maray banaanka imaan doontaa raggeedii aan wali helin laakiin dadka isku wareejinaya waa dad ayaga ay baashi lugaha la geli doonto aad iyo aad waad umahadsantahay gooniyo dabayaaqada barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay waxaan barnaamijkeena hordhiciisii kusoo qaadnay in magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab ay xidhiir la leeyihiin dowladda federaalk ee Soomaaliya arrintaasina haatan ay ku socotaan baadhis xoogan haddaba waxaad sheegtay in la saari doono magaalada muqdisho iyo guud ahaanba gobolka banaadir wax la yiraahdo inxisaar ama bandow xaalad degdeg ah haddaba arrintaas see ku dhacaysaa arrintaas waxay ku dhacaysaa horta dowladda federaalk Soomaaliya ciidamadeeda iyo saraakiisheeda sarsare ee gobolka banaadir amnigeeda u qaabilsan kala shaki ay soo kala dhaxgalay qaybta nisa oo maasaad u hogaamiyo xijaar oo hogaamiyo booliiska taliyaasha gobolka banaadir qaybta waliyo cadil oo loo yaqaano raggaas oo dhan waxaa kala shaki ay soo kala dhaxgalay haramacad qaybtooda waa kulli
nin walba nin kaloo ka shakisan yahay marka waxaa leeyahay maadaama xaalad xun ay jirto oona la kala shakisan yahay qolo walba qolada kale ka shakisan tahay xaalad degdeg ah la geliyo magaalada muqdisho muddo maalmo kooban ah oo ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc ama bil ah xaalad degdeg ah la geliyo markaasna hala kala cadeeyo dadka micnaha shabaabka xiriirka leh waxaana hadda saraakiil fara badan oo shabaab ah ayaa xiran oo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo shabaab la shaqeynaya ayaa xiran oo baaritaan ku socda waxyaabaha la bilaabo hadda waxaa kamid ah in telefoonadooda la dhageysto xiriirka ay sameeyeen 2 bilood iyo 5 bilood oo la soo dhaafay in dib loo raaco marka taasoo kale waa hawl fiican oo guul keeni karta kuwo kale hadda aan weli la soo gacanta lagu soo dhigin laakiin magaalada Muqdisho joogo ayaa la qoray nambaradooda ayagana dhageysi iyo tixraaca lagu sameyn doonaa marka hawshu ma sahlano rag fara badan oo iska fiican oo dowladda hormuud u ah dadka u sacbinayaan hadhow lugaa dhiiqa la geli doona sida Xashim Maxamed sheegi jiray marka waa ogaan doonaa maalmaha soo socda wixii ka soo baxo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faallooda arrimaha koonfurta dalkaasi Soomaaliya daawadayaal barnaamijkeenii oo aad u xiiso badan inta ayaan kusoo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid lamid ah waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo